ayuu celin karaa gaariga bullet proofka adigoo meel culaad jooga kana baqaya qolaad disaysaan gaarina wadataa haddii aadan ka baqaynin inay xabado ku soo gasho gaariga soo xasilooni iyo kalsooni dheeri ma ahan gaariga ay qaataan naftoodana ku aaminaan dadka madaxda ah kuwa ganacsatada sare iyo kuwa dhaqaalaha culus haysta ee sidooda muhiimka isku arkaa waa gaariga ku magac dheer bullet proofka sidee buu u shaqeeyaa waa maxay shayga uu ka samaysan yahay ee adeega balada ah xabadda aan naqaano awoodeeda iyo orodkeeda celinaya waa su'aasha aynu jawaabteeda ku ogaan doono muuqaalkeena maanta magacaygu waa Diin Xuseen Shacab halkani waa Somcast ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta ugu horeyn baabuurta marka la soo iibinayo maahan kuwa xabad celin kara shirkadaha baabuurta iibiya maahan kuwa ku shaqo leh bullet proof ama xabad celinta waxaa jira shirkado kale oo sidan ka dhiga baabuurta taasna waxaa keenaya shaqada oo ah mid aad u adag mana ahan baabuur khaas ah baabuur walba waa laga dhigi karaa xabad celiye laakiin maadaama ay culus tahay shayga xabad celinaya waxaa muhiim ah inuu gaarigu yahay mid u dulqaadan kara qaadi karana culayska haddii kale jardiimada yaryar ayaa qabsanaya sida ku dhacday baabuurkan oo uu saarnaa Barack Obama walow uu ahaa gaari xoog badan misna waa ay ku dhacday goortii aad damacdid inaad gaariga ka soo dhigtid bullet proof adigoo macaamiil heer sare gaaray tusaale ahaan waxaad gaariga geenaysaa mid ka mid ah shirkadaha shaqadan qabanaya kadibna markii lagu amaanay aadna maqshay inay in badan ku badbaadeen macaamiishoodii hore kadib markii loo dhigay shirqool lagu dil rabay gaarigaaga waa la furfuri doonaa oo isaga dhan waa la dhili doonaa waxaana laga bixin doonaa kuraasta roogaga iyo dahaarka daaqadaha oo dhan kadibna waxaa lagu dhijin doonaa birihii muraayadihii xabadda celinaya min daaqado salka hoose iyo saqafka sare ee gaariga shaygan xabadda celinaya waxa uu ka samaysan yahay alaabo la isku geeye waxaana ka mid ah polycarbonate plastic ball fiberglass iyo copper iyo kuwo kale oo badan alaabtan oo isagu jirta kuwa aysan xabaddu sidooda u karin iyo kuwa lagu xoojiyo ayaa la isagu daraa in lagu daaro baabuurta alaabtan waa kuwa intooda badan ka samaysan ashyaa plastic ah laakiin cufkooda ama densitigooda aad u sareeyo waxaa xusid mudan in farsamadan ka dambeysa xabaddu dhaafi weysa muraayada aysan ahayn kaliya adeegeeda laakiin sababta aysan la dhaafin waa in muraayada ay ka nuugayso enerjiga ama tamarta ay wax ku duloolinayso isla marka ay ku dhacdana muraayada xabaddii noqonayso dhagax la soo tuuray oo kale waxaa jira dhowr level ama heer uu difaacu gaarsiisan yahay kaasoo ka qaalisan hadba midka difaaca yar tusaale difaaca koowaad waxa uu ka jaban yahay difaaca ama levelka afraad ama saddexaad heerka difaacuna waxa uu ku xiran yahay inta muraayadood ee la isku dhinac qabtay ama la isku lamaaniyay oo haddii laba muraayadood kaliya la isku lamaaniyay waxaa ka difaac badan marka la isku lamaaniyo 3 muraayadood laakiin nasiib wanaag baabuurta lagu qalabeeyay difaaca heerka koowaad waxay awood u leeyihiin inay ka celiyaan rasaasta baskooladaha 9mm sidoo kale qoryaha yaryar waxayna awood u leeyihiin inay celiyaan ilaa 3 jeer oo lagu dhuftay hal bar ku tasho haddii uu toogto yahay shiishyahan oo uu mar afraad isla bartii ku dhufto inay ku soo gali doonto xabadda ugu dambeyn si shirkadda u qabato xabadda shaqo xabad celin ah ama bullet proofing ah waxay u baahan tahay laysan si xoog badan iyo tijaabo waqti dheer ah